السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن أصحابي ملكستو هاد نغدا وريسان صباح وناكسن والصباح نمو أحدا تاريخ دونا أي كوباقان تاي سغالك نوفمبر سنة 2025 warar muhiima ayaynu saakay barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doonaa. markii ugu horeysay Al-Qassam oo saakay faahfaahin ka bixisay ciidanka la leeyahay wuxuu ku go'doonsan yahay meel ay joogaan ciidanka Israa'iil deegaanka Rafah ee koonfurta Gaza. maxay dalbanayaan Xamaas, maxayse sheegeen? haddaba tafaasiil ku saabsan arrinka waan idin hayaa. sargaalka lafihiisa ay soo heshay Al-Qassam ee Israa'iil aadka looga sugayo, Al-Qassamna ay weli gacanta ku hayso aanay dhiibin. muxuu yahay sargaalka oo lagu magacaabi jiray Hadar Golden? haddaba tafaasiil ku saabsan ninka iyo waqtigii la qabtay iyo wixii laga qoray baanu tafaasiil idinkaga haynaa. gabadhii iyadoo ahayd dacwadoogaha militariga oo saakay cisbitaal loola cararay, tolow maqolooyinkii mayalka adkaa ayaa u dusay oo dhibaateeyey. tafaasiil ku saabsan sheekada ayana waan idiin soo gudbin doonaa iyo warar kale oo xiiso leh. waxaa soo kale qaybaha dambe ee barnaamijkan idinkugu hayaa madaxweynaha waddanka Suuriya Ahmed Al-Sharaa ayaa wuxuu ka degay magaalada Washington. wuxuu la kulmi doonaa Donald Trump. ujeedada Donald Trump uu ninkan ula kulmayo iyo waxa uu doonayo inuu ka saxeexo xoga soo dusay ayaynu barnaamijka idinkugula wadaagi doonaa qaybaha dambe. inta aan ku jirno wixii warar soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. waxaa dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dalka Kenya iyo Geeska Afrika iyo magaalada Nairobi inay jirto shirkadda caan baxday shirkadaha uga duwan xagga diyaarinta dhismayaasha dhaadheer oo waa shirkadaasi caanka ahi. waa shirkadda lagu magacaabo Emara Luxury Homes Limited ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan Kilimani iyo wadada caanka ee lagu magacaabo Leilani Road oo aan ka fogeyn safaaradda dawladda China ee ku leedahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Emara Luxury Homes Limited waxay ku diyaarinayaan 2 dhismo oo dhaadheer oo caan ka ah magaalada Nairobi, dadkuna ay u aayayaan mustaqbalka dhow iyo ka fog intaba. waa Parkland iyo halka lagu magacaabo amaba agagaarka waa xagee waa City Park Drive 6th Avenue. dhismaha kale dheer ee labaad ee shirkadaasi ay ku diyaarisay waa dhismaha lagaga diyaariyay halka lagu magacaabo Kilimani iyo wadada madaxtooyada ee dalka Kenya ee magaalada Nairobi. waxaa hagayo hogaaminaya waa sayidka Soomaaliyeed, waa sayidka Geeska Afrika ee yaan la moogaan guud ahaanba maamulka guud ee shirkadda la jeclaystay Emara Luxury Homes Limited. kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya barnaamijyada maanta oo axada aan idiin soo gudbinayno. haddaba barnaamijkan waxaynu marka hore ku bilaabaynaa arrinta ku saabsan ciidamada Xamaas ee la sheegayo inay ku go'doonsan yihiin meel ay joogaan ciidanka Israa'iil ee dhanka Rafah koonfurta marinka Gaza. maalmahan oo dhan waad la socoteen, warbaahintu way ka hadlayeen. kuwa Israa'iil waxay lahaayeen waa 100, qaar waxay lahaayeen waa 200, qaar waxay lahaayeen mar hore meesha ku go'doomeen, qaar ka dhintay in yaraan nool. waxaasoo dhan la isla waday. wax tafaasiil ah oo ay ka bixinaysay Al-Qassam ma jirin. waa taan idiin sheegay
dhexdhexaadiyaasha ayaa halkan wax ka samaynaya. Masar ayaa dhexdhexaadinaysa sidii meel amni ah loo marsiin lahaa, hubkooda saana yeelaya. waxaasoo dhan way socdeen inay soo dhiibaan, hubkooda ay dhiibaan, ayagana meel la mariyo. waxaasaan sheegay saake. marka aljaziira waxay leedahay nimankii alqasaam war official ah oo rasmi ah ayay ciidankooda ka soo saareen meesha ku go'doonsan. marka warkaasu laba qayb waaye. mid wuxuu guud ahaan laga fahmayaa ciidanka inay meesha ku go'doonsan yihiin, oo macnaha ciidamo inay meesha ka joogaan waa la fahmayaa lagu leeyahay. midda kalena waxaa laga fahmayaa inaysan ciidankaas oo alqasaam meesha u joogaa wax dhibaataa qabin. hana loo sii dayay ciidankeena khataray ku jiraan ma jirto. marka warbixinta say aljaziira ku bilowday ayaan idin tusinayaa. markaas kadibaan wixii falanqayaashu ay ka yidhaahdeen u gudbaynaa. haddaba aljaziira waxay leedahay alqasaam waxay sheegtay inaanu ku qornayn qaamuuskooda ama dastuurkoodu aanu ku qornayn mabda' isdhiibid oo nafta mujaahidka loo dhiibo cadowga. kataa'ib ciizudiin alqasaam garabka militariga ee muqaawamada islaamiga xamaas ayaa waxay sheegeen gumaystuhu inuu isagu qaadi doono mas-uuliyadda mujaahidiinteenna rafax jooga. waxaana ay sheegeen in markaa haddii wax dhibaataa ay soo gaaraan ay markaasi dhibaato iyaguna ay markaa samayn doonaan. qaamuuskeenna waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mida qaamuuskeenna yidhaahdeen ma qoraayo wax la yidhaha istislaam, isdhiibid aan cadow isu dhiibno. qaamuuskeenna maba qoraayo. macnaha qaamuuska waxay ula jeedaan heshiisyada noo yaalla iyo dasaatiirta ama dastuurka alqasaam ay ku dhaqmaan. wax isdhiibid la yidhaha maba ku qornadhe. marka sheekadan meelaha la wareejinayo waxaas annaga waxaan akhrisanayno ma ahana dheh. annagu ma rabnay dheen xabad joojinta inay burburto, khatar kuma nihin, laakiin inay wax dhibaataa gaaraan mujaahidiinta halkaa joogta ma aqbalayno. marka meesha waxaa ka cadaa leeyahay inay qolo meesha u joogto way caddeeyeen. qoladaasuna inaysan marnaba inay isdhiibaan xisaabta ku jirin way sheegeen. marka wixii kaloo xal kaloo la keenayo waa in la keenaa. ayagoo hubkooda wato inay meesha ka soo wareegaan, meel kale ay yimaadaan, taas waa la ogolaanaya ay leeyihin. laakiin laa yuujad oo maaragtay ma laga helayay dheheen qaamuuskeena waxba lagama helayo isdhiibid wax la yidhaha maba annaga qornaba maba qorno. fariintaas marka waxaa leeyahay waxay ku socotay maalmahan raggii doonaya isa soo dhiiba ciidanka meesha